salaadu waa waajib jamaaca inaad ku gudataa baana fiican oo jamaacaadka xaadirto inaad dadka baryinna waa waajib oo aad xoogsato ummaddu inay faa'id soo saarto dheeraad inay soo saartana waa wax loo baahan yahay haddii aynu idhaahno ummadoo dhammi ha wardido wardiga ha qaadato ha wardido haye inta ugu yare lagu noolaan karo un markaad soo qabato fadhiiso oo dadku marka ayuu cilmiga yaan dhakhtar la baran oo yaan falag la baran oo yaan xisaab la baran oo yaan handasa la baran oo yaan chemistry la baran oo yaan physics la baran waxaasoo dhami waa adduunka faanigaa bay ku tacalluqaan haye natiijadu maxay noqonaysaa waxaa soo baxaysa ummad dhammaanteed foqora ah dhammaanteed jaahilka aan nolosha adduun say u maamusho dhammaanteed bugta oo wax daweeye aan loo haynin yacni waa dadka ku dul nool parasites baa soo baxaya dad bashariyada kale ku dul nool waxa loo baahan yahay wuxuu weeyaan waacidu lahu ma istata'tum min quwwatin wa min ribaat الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم بالليل وكيف تعد هداد جهل يبقين وضحيو كيف تعد هداد جهل يفقر وضحيو ساشي سويدين تلي وحويان مركا نوعا هدي لون نولاده حنون كافافا يعد ويسلو هلي ماي جهل كافافا يعد نلاش هرو مرسل هلي ماي نلاش دنبا آسميسا مسلمين تيهوري وحي عانك كوا هايه دادك نتيدا قلدنو فامي وهل مسألة بالمسألة دا ودكتاغا وحي هايين وحصوصار دادك وغبضا وحي كلوا هايين استهلاك دادك وغير لبدا لما يتلا فهمي كريسا شغل قبطو دad shaqeeyo aan aqoonin caajiska ee wax soo saara laakiin marka ay noqoto ku raaxaysigeeda waxa ahaayeen dadka ugu yar isagoo milyaneer ayuu haduu hilib yar oo shiilan cunay soo jiray arma kaniki aakhir ku weydaariya idan ma yahayn wax la'aan ee waxa iyadoo gacantooda ku jirtaan ay qiimo badan u sameeyeen inaga laba mushkila meesha taala dad badiyay aakhiran ku socona adduunkaba uma baahnin dabeetana uu gaal ku hoos noolaaday iyo in aakhiraba ilowday oo tiri adduunyan raadacaynayna dabeetana adduunkan iska bidbidsanayna meelaha duulduul oo kolba siyaaxad iyo daar yar cagaaran iyo inta noloshaba inta moodo aakhire ilowday laakiin labadaba cagsigooda ay hayeen saxaabadii nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa hayeen wax soo saar marka la tago dadka ugu juhdiga badan le muntajiina markay noqoto conceptionna waxa hayeen dadka ugu yar juhdiga xaqiiqigiina waa ka culama ilhadiis rag kamida oo waaweyn oo salafkiyaba waxay oran jireen nin kamidaba wuxuu yiri ardadiisa isagoo la dardaarmaya wariyaadeen anigu walaalahay baan ku kornoolo wax la cunaa buu yiri idinka waxaan idin kula talinayay xoogsadaan buuleeyay tayirtiin xoolo dhaqda waa nin muxaddisiinta waaweyn la yaqaan kamida muxaddisiintu waxay caayi jireen ninka dawladda lacag ka qaata ama se xadiiska ku xoogsada muxaddisiinta qaar baa jiray aan lacag ba haysanin dadana waxay oran jireen idin sheegayna xadiiska idinka wax nasiiyo mooyaan marka lacag la siiyay in xadiiska sheegi jireen marka ahlul xadiiska markay ka waramayaan ragay maagaan bay ku jiraan oo yiraahdaan xadiiskoodii bay ku xoogsadeen idan waxay nici jireen hatta inay diintu wadiifo ka noqoto wala professor banay wala ustaad banay wala waxa kan banay malihi ma banaana laakiin waxa aan tilmaamaya iyaga aragtidooda waxay ahayd inuu wixiisana xoogsado cidina aanay u manna sheegan marka la dawlad wala shicib wala qofna aanu u manna sheegan isagoo gacantiisa wixiisa ku haysta inuu isagu wax sheega hadana isagoo inuu dadka u manna sheegto cilmigiisa waa aakhira iyo ajar ku helo muuminka xaq ah marka waxa weeyaan waa adduunka ka intaajkiisa iyo wax soo saarkiisa uu ugu sareeyo istihlaagiisa iyo qooqiisuna uu ugu yar yahay oo hadaa see loo oranayo xoolaha badan la shaqeynaya islaamkiisa iyo diintiisa iyo dadnimadiisa ku horumarinaya masaajidaynu maanta raadacaynayna waxaynu dhisaynu laana waayo waxaynu soo saarayba waynu ama muntajiin bayna nahayn ama mustahlikiin bayna labadubana waa waxa fiicnay muntij noqo mustahlikina ha noqon wax soo saar waxna hay si aad nolosha u barbaar